waxaan rabaa inaan warbixin yar ka bixiyo kiis ka dhacay eelboorka aadan cadde shalay oo taariikhdu ahayd 19 bishii 12aad 2021 abaaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga ay soo caga dhigato diyaaradda Turkish Airways rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rag kamid ah oo Soomaali ah iyo waxa is-afgaran waa dhaxmaray kuruugi diyaaradda rag ka tirsan dagaalkii dhaxmaray awgiis waxa loo yeeray ciidanka booliiska eelboorka waxaana meeshii dadkii rakaabka saarna qaar ka tirsan iyo kuruugi ay gacan qaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda kuruugi mid kamid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho rifeetana la siiyay sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliiska Soomaaliyeed markii la waafajiyay isbitaalka dadkii gacan qaadka sameeyayna oo 5 qofood ah waxay ku xiran yihiin xarunta baarista dambiyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybtiisa airportka aadan cadde iyo qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedeysanayaasha ahaa iyo dhibanihii bala soo wareegay waxaana la geeyay xarun caafimaad waa caafimaad qabaa uu fiican yahay walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedeysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dambiyada waxaan u xaqiijinayaa in kuruugi uu caafimaad qabo fiican yahay cid alaala cidii xadgudub sameysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta meel kasta ha jooga wax kasta diin kasta ha aaminsanaado nooc kasta ha ahaado ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada tii ayaana socota waxaana wadnaa baaris wixii ka soo kordhana dib ayaan idin ka soo sheegi doonaa